جزاك الله. هذه عطها صوب الجوج. ديار بدها بحين هذا. ديار. ما شاء الله. السلام عليكم. يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وين السلام؟ ومركي لبعض وأنا دكتور سلانو هورشة أنت عم بلاوني دبودسكا يدبوشيسينتا قلمدك مر والبنا وحايدين كم وقت وجيه فرن sababtoo ah guriyo furan lama galay wajiye furan la galaa waa ku mahadsantiin soo dhaweynta maalintii hore halkan idinku weymid waxaan idinka iyo reer xaraalaba idin sheegay inaan la aqbali karin dad walaalo ah inay colaadi ku kala dhex jirto maalintii iyada ahayd waxaan idin sheegay in colaadda la soo afjaro sida ugu dhaqsaha badanna loo soo afjaro maalintii waxaan idin sheegay idinkana codsaday inaad igala shaqaysaan inaan soo afjarno colaaddaas reer xeraalena markaan u tegey waxaan isla maalintaas ka codsaday inaanan meesha ka tegayn ilaa heshiiskaasi uu ka dhaco waxaa ilaahay mahaddiisa in shirkii xalay la furay oo ah gogashii daba-heshiisiinta galmudug sharafta ugu weyneed oo looga hadlayay xalay inay ahayd horumarka ay ku tallaabsadeen dadka reer huurshe iyo dadka reer xeraale laba maalmood ka hor meeshii aad joogtiin waa ogtihiin xalayna meesha aad joogteen waa ogtihiin maantana meesha aad joogtaan waa u jeedaan laba arrin ayaan rabaa inaan halkan ka caddayno mid waa waxa aan u soconno midna waa waxa aan codsanayno waxa aan u soconno waxa ay tahay in dadkii idinku matelay heshiiska odayaashii kulligood ayna raacaan hadda aniga iyo wafdigayga oo ay nala tagaan xeraale si ay ugu wareegaan guryahoodii dukaamadoodii iyo ceelashoodii walaalihiin xerxeraale ayaa bannaanka u taagan waxayna aqbaleen qof waliba in lagu wareejiyo gurigii ama dukaankii ama ceelkii ama wax walbuu meeshaas ku lahaa idinkana waxaa la idinka rabaa dadka xerxeraale jooga inaad albaabada u furtaan guryahoodii u furtaan iyaguna ay ku soo laabtaan arrinkaan idinka codsanayna waxa ay tahay idinkoo mahadsan colaadda halkan ka dhacday waxay saamayn ku yeelanaysaa taariikhda ummadda soomaaliyeed waa colaad saamaysay wiil iyo aabbihiis laba isla dhalatay laba ilmo adeero ah iyo dhammaan reer fiiq maxamed oo ah dad ilaahay badiyey haddana kulligood wada walaalo ah colaadda noocaas ah uma fiicna qalbiga uma fiicna qarannimada waxaan rabnaa inaad ballan qaadaan inaanay mar dambe nagu soo noqon dadka iyo geyga soomaaliyeedna aanay ku soo noqon haddii ilaaha yidhaahdo ma ballan qaadeen heshiiska inaad qaadataan
ma ballan qaadeen inaad nagala shaqaysaan colaad dambe inaanay nagu soo laaban ma ballan qaadeen inaad noqotaan hormuudka reer galmudug iyo soomaaliyeed ee nabadda waa mahadsantihiin waxaan rabaa marka inaan ku soo khatimo annagoo u safri doonna guryihiinnii iyo geygiinni si aad ula wareegtaan waa idinkii ka hadlaayey saadaqna uu ka hadlaayay in deegaanka la hormariyo deegaanaan amni ahayn lama hore mari karo deegaan colaadi ka jirto dowladna ma imaan karto hay-adna ma imaan karto maadaama aad heshiiskii qaadateen waxaan ugu baaqayaa dhammaan hay-adaha kala duwan ee federaalka inay u yimaadaan gacanna siiyaan shacabka reer huurshe iyo reer xeraale waxaan ugu baaqayaa hay-adaha caalamiga ah ee ka howlgala dalka soomaaliya inay iyaguna sida ugu dhaqsaha badan uga soo howlgalaan huurshe iyo xeraale annagoo kula xisaabtami doona waxa ay halkan ka qabteen ugu dambayntii dhulkan waa dhulka culummada waa dhulka shuyuukhda waa dhulka ducada iyo iimaanka waxaan rabnaa in lagu aqoonsado taas lagu xasuusto ma rabna mar dambo in lagu xasuusto dhul colaadeed iyo dhul dagaaleed dhulkii aan ducada u soo doonan lahayn weeyaan sidaas daraaddeed waxaan rabnaa inaan soo celinno taariikhdii sharafta lahayd waa mahadsantihiin